wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Somaliland ayaa maanta kulan ballaaran isugu yeedhay qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee u baahan in la gacan qabto kuwaas oo ku nool deegaanada Somaliland. Wasaaradda ayaa shaqo abuur u samaysay 50 qoys kuwaas oo ka kala yimid gobolada Somaliland si ay u soo kabtaan una dhiirigeliyaan hal-abuurkooda ganacsi. kulankan oo lagu qabtay magaalada Burco ayaa waxa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Somaliland Cabdirashiid Sheekh Ibrahim Cabdiraxmaan iyo agaasimaha waaxda shaqo abuurka ee wasaaraddaasi Maxamuud Saleebaan oo ka warbixiyay shaqo abuurkan ay u sameynayaan danyarta. wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo xukuumadda guud ahaan sharafay maanta u tahay in gobolka Togdheer dhexdiisa ay ku guddoonsiinayso ganacsi iyo hal-abuur iyo maalgelin lagu sameeyay hal-abuurkii ay lahaayeen bulshada gobolada bariga oo halkan la isugu keenay oo maanta ay 50 qoys oo kamid ah ay ku guddoonsiinayno maalgelin ay ganacsiyada ay lahaayeen iyo fikradii ay lahaayeen iyo hawlihii hore ay hore uga ganacsanayeen lagu taageerayo wax lagu kordhinayo runtii sharafay ka wasaaradahan noo tahay maanta tan ay wasaaraddu sameynayso gobolada bariga ay ku maalgelinayso 50 qoys ee kamidina waa mid kale oo runtii dawladda iyo xukuumadduba ay ku dhiirigelinayso sidii dadkeeda danyarta ah ee ganacsiyada iyo hal-abuur kale sidii loo gacan qaban lahaa ayay runtii tan dhiirigelinaysaa loogu talagalay in markaa gobol walba inta markaa han ganacsi leh hase yeeshee dhaqaalahooduna uu saamixi waayay duruufo gaarana haysta in markaa lagu taageero kulli waxa isweydiin leh siyaabaha lagu soo xushay dadkan waxay ahaayeen runtii gobol walba waxa joogay isduwayaasha markaa soo gudbin jiray dadyowga markaa baahidaas qaba siyaabaha lagu xulinayay kulli waxa loo kala eegay baahidooda dhaqaale baahidooda ii sheegay bulsho hadii markaa tusaale ahaan dadyow dadka xanuunsanayaan dad naafahay ku jiraan dadyowga laga lahayb sooco intaas way ugu dhex jiraan dadka qaar ba hilbiyaalaha qaar ba dukaamo haystay qaar ma harqaana haystay qaar ba de meherada ciida ka badan oo noocyaabay hayn qolo walba waxa lagu kabayaa waxeedii ba wax loogu kabayaa qalqudhiga looga dhigay waxa weeye qaranku isaga ayaa kobciya danyartiisa baahan. Barasabka gobolka Togdheer Maxamed Deeriye Xayd iyo mas'uuliyiintii kale halkaasi ka hadashay ayaa si weyn ugu mahad celiyay wasaaradda shaqo-gelinta iyo qoyska shaqo abuurka ay u bilowday qoysaska danyarta ah ee ku nool Somaliland. walaalayaal bishii kasta ee dhalata in wasaaraddu gobolkan ay wax ka fuliso hadday tahay magaalada gudaheeda iyo hadday tahay degmooyinkeeda dibadda iyo tuulooyinkaba waa waxaanu ognahay waxaanu wasiirkeeda ognahay waxaanu dhiijiga ognahay iyo shaqaalaheeda kaleba waxa weeye wasaaradda keliya ee lala qaybsata baahida dadkayga jilicsan leeyihiin aad baan u soo dhaweynaa waan uga mahad celinaynaa xubnahooda kala duwan dhammaantoodba haddaanu nahay dadweynaha shaqo kordhinta ama shaqo abuurka loo kobcinayo dadkaasi madaraqad hoose iyo madaraqad dhexe iyo mid finishaba way leeyihiin shaqo abuurkan loo shaqo abuurayo ay madaxdooda sharafta leh u garatay aad iyo aad bay ugu qanacsan yihiin anigoo ku hadlaya afka soos waxaan u hambalyeynayaa u mahadnaqayaa wasaaradda bulshada iyo qoyska ee garatay inay shaqo abuur u samayso dadka faraha badan ee runtii u baahnaa. Xabiib Ciga Xasan Hon Cable TV magaalada Burco. ma ogtahay macmiil in shirkadda Somtal ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai mobaylo talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale account dahab shiil ah oo lacag kugu jirto haddaba si aad uga mid noqotid guulaystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtal sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtal waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtal uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefonkaaga kadibna geli telefonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaad ugu diri kartaa si lacag la'aan ama bilaash wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh
lambarka gaaban ee 333